ما هذا إسكاله السجع يا روح البنات دري السجع يا نقوم هذا wax kasto aan qabanana Allah weyn oo waahidka ayaana la qabtay hayeeshee annaga hadii aan nahay ma taqaanaa reer halaag wax aanan ogeyn oonan amrin oonan annagu sida u shaqeynayaan aanan ogeyn oonan annaga noogala amar qaadanayn oo aan annaga noogala dambeey ma soconayaan mana soco karaan maalmahan waxa yani ma taqaanaa keenay inay annaga ma taqaanaa dhigeen iska dhigaan oo annaga yani doonaan yani ma taqaanaa la saftaan dhinac kale ka saftaan oo ismuujiyaan oo yani shacabka kasbadaan oo waxyaabo annagu aan raalli ka ahayn mar kasta ay ku hadlaan waxa weeye yani reer horor waa la hadalnay waa waaninay run baan u sheegnay walaalo baan niri wax kastaan tusnay waxaan tusnay inayna horor ayna sharci ahayn oo inay yani ma taqaanaa ka gadmaynin yani bulshada iyo adeega islaamka midna inayna ku fiicnayn waxaan niri waxyaabaha aad wadaan waa fiicantii haddaa wax bilowdeen oo wax isku daydeen laakiin aan ila wadno oo ila hagaajino ilaa wax ay sax ahaadaan sida la rabo oo xalaasha ay u shaqeeyaan ma yeelayaan waxay wataan wax jinde oo nagu aan aqoon ayagana aan dan ugu jirin annagana aan dan ugu jirin islaamka iyo dadka muslimiinta aan dan ugu jirin waxa weey waxa marka dan ku jirin oo dhibaato keenaya waxay ku fiican tahay totalmente in laga taqaluso oo la dilo waxaas bakee wax fiican ba maahan si looga maarmo oo uga baxaan meesha ayada ilaa dhibaato leeyahay waxa weey nimanka reer horor annagu madaxdoodii iyo maamulku oo dhan waa la hadalnay waxaan ku niri walaalayaalo waxaad yeelaysaan annaga heer halaaga nasoo raaca xaqiiqda iyo wadada fiican iyo tubta saxiixa annaga ku socono way diidan waxa la ninkii meel uu cadda meel uu ka madow haddii waxa runta oo xaqiiqda oo lillaahida oo wanaaga oo sharafka haddii aad diido haddii aad u socoto waxa xun oy ku cadiin wax xun sharci ku yihiin wax fiican ay xumaan ku yihiin waxaad moodaa yani waxaas ayada inay ka imaan doonaan dhibaato inay ka imaan doonto dad badan ogoleen xumaanta marka kooxdaas ayada ah oo ma taqaanaa dhibaatada ka shaqeynaysa annagu haddaan heer halaagnahay heer horo in laga taqawuso oo awood loo sheegto oon hubka ka qaadno oo dhaqaalaha ka burburino oo dhulka ay haystaan iyo meelaha ay ku ordayaan aan ka gacanta uga dhigno maahana horta wax kale oo jira maanta ma jiraan heer halaag wax ka sareeya oo meeshaan ku soco karaa ma jiraan heer horar hubkaa laga qaadayaa waana laga taqalusayaa dulkaa la kala geynayaa wax la dilo iyo wax la soo qabto iyo wax la xiro ayaa laga dhigayaa maanta waxa ka dambeeya heer horor iyo annagu iskala socomayna meesha heer hororna waxa weeye sida ay taa loo soo qabanay taasi waxa weeye waa xaq amarkaasuna waa baxay heer horor waa gacan ku soo dhigis iyo qabasho sidaan waxa laga doonayaa inay sugaan ammaanka ilaaliyaana kor yeelaan nabadda iyo horumarkana waxa laga rabaa heer halaag inay soo celiyaan heer hororna ka taqalusaan waa sidaas maanta waxaan meesha u imid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilah qayb allah ku siiyo waxaa tahay macallinkii na baray oo na faray ee hormuudka nooga ahaa ee na tababaray inaan u halganno ummadda muslimka ah meel kasta ay joogto intaas kadib abu dabaylow xaalado badanaa jira waxaa laga soo horjeedaa kooxdan horor waxaana naga soo horjeeda kooxda halaag kooxda horor annaga haddaan nahay awood waa leena alla na siiyey waxaan samayn karnaa wax walbaan samayn karnaa laakiin isku hadafaan ka nahay horor iyo halaag murtidiinta yaan la wada dagaalayna laakiin ma ogola kooxda halaag inaan ka barbar dagaalano ama magaceenu soo baxo ama magaceena ka xanaaqda habeenkay meel weeraraan 3 meelaan weerarnaa marka 3 meel weerarnay naga hinaasaan kooxda horor markaas yidhaah kooxda halaag aan yidhaah kooxda hor saan waa weliba hadlala hoosoo shuxaaja aniga dirira waxaan aad uga soo horjeedaa una cariirsana kooxda halaag awood buuxda inaan tusno annagoo jihaadkan iskula jirna inaan awood buuxno markay iyadoo lagu haynaga jafaysaa tallaabtaan qaadsinaago waxay ka bixinaysaa tafaasiil dheeraaday ka soo bixisaa ninka la yidhaahdo annagoo dan koonfurta joogno ninka la yidhaahdo mahubsade horta noo jooga annaga magaalada caasimadda
garab wuxuu u baahdo ama ciidan haada ama hubna waa la garab taagana ilaa amar dambe haye Abu Dabayl horta waa mahadsantahay khayr allah ku siiyo arday wanaagsan oo aan sidaan u tababartay igula socda oo sidaan wax u wada iila og oo muxuu ahaay wax alla wixii loo baahan yahay intaanan u dirin asagu isu diro ayaa tahay waana sidaan kuu tababartay waxaa kuu soo haray kooxda halaag kooxda halaag weligoodba waxay raadinayeen in ay hadafka iyo ujeedada loo dhisay kooxdeena horor inay ka hor yimaadaan anigu nin weyn baan ahay ayaguna badi waa ardaydaydi ardayduna mid fiicanna waa laga helaa mid xunoo caasiyana waa laga helaa nacam nacam waxaan u malaynayaa hadda xoogaa caasinimo inay soo wajahsan tahay haddii mar horena waa idinkaga digo waxaan idin iri dagaalka waa lagu wada jiraa safkana waa lagu wada jiraa jihaadkana waa la wada wadaa nacam 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 ardada dagaalamayso magaalada ka dagaalantana waxay kasoo baxday dugsigeena nacam anigaa waxaa dugsiga joogay anigaa macallin u ahaa inkastoo macallimiin kale khayr allaha siiyo oo iga hooseeyo oo hadeertaan yiri macallin noo fariiso ay jiraan khayr allaha siiyo kuwaas waa ku nastay waxaa marka jirta mujaahidiintu meel kastay joogaan waxaa loo baahan yahay inaysan horta iyagoo iskhilaafin uusan khilaaf imaanin mujaahidiintu hadday iskhilaafto ama muslimiintu ay iskhilaafaan dhexdooda laga faa'iidaystaa meeshaasna waxaa ka imaanaya jab waxaa ka imaanaya tafaraaruq waxaa ka imaanaya in safafka laysu baneeyo waxaa ka imaan kara in mujaahidiintu ayagu ay israaraadsadaan oo iswaaweeraraan marka looma baahna dagaalka mar haddii saf lagu wada jiro ayaguna aag bay kaga jiraan annaguna aag baan kaga jirnaa aaganaga aan xajisano ninka la yiraahdo dabayl raac ninka la yiraahdo moobsade ama telefoon u dirnaa xalkiisa maya asagoo horta telefoon waa u dirnaa ama asagaa noo soo doonaa ayaantan ma aqaano saacad buu noo soo wici jiray hadda ma naqaano wuxuu noo soo wici laaya 24 saac wax telefoon ka mid ha marka xaalad baa iska jirtaan u malaynaya xaalad way jirtaa kooxda halaaga dhibaysa ninka waxaa loo taagay waaba lagu hareereysan yahayba talaabtu qaaday ba isticmaal hadda hareereys inuu ka cayntaan u malaynayaayo ciidanka uu haysto ama hubka uu haystaa hub badan ahaa waxaan u dirnay wax yar ma ahayn ninkaasna nin karmeed ah weeyo looma geli karo lamana weerari karo lamana dhawaan karo waa nin khatar ah oo meesha uu jiro aan anigu ku aamin qabno shakhsiyan u fiican yahay shakhsiyan waa nin dhisan xataa kuwa kale oo ka hooseeya oo amiirada oo hogaamiya aad niman u fiican weey ma fahamtay marka waxaan samaynaynaa taakulaynta iyo tashiilaadka iyo wax alla wuxuu u baahan yahay maadaama anaga koonfurta joogno oo aan haysano muxuu ahaa dekada noo shaqeeya aan dhul fiican aan haysano waa inaan ninkaas ka warrayno meeshiisa ku dhaqaaleen hadduu noo yimaado waa inaan teennana ilaashano teennana loomaba imaan kara meel naloo soo maraba male meel naloo soo mara male annagu xag ilaahay baa amaan nasiye amaan baan ku jirna annaga waa saxe kooxda halaagaan uri meel aysan kuugu imanayn haddaan si fiican aan diirta loo isha haddaan saa loogu hayn diirta loogu hayn kooxda halaag meel waa kugu imaanaysa warkeygana bar macallin kolley adig macallinkeena yaa tahay aniga wax badan baan arkaa waxaan arkana sidaa u arko waxaan jeclahay inaan ka fiirsado wax walba inaan ka fiirsado anoo ka fiirsada inaan wax iraahdo anoo ka fiirsaday inaan wax sheego intaba waan rabaa mubsada aan waxna bal xalkiisa u yahay haye bal wax bal adiga indhahoon anigu waa duq waan noqday adigu halgankiisaad u halgamaysaad u halgamaysaad u halgamaysaad u halgamaysa hadee hawsha waxay isku noqota wax la jiro aan laftayda waxba ma arko dib ma lahan هلو ها السلام عليكم. عليكم السلام مبصرة هاي ورما هاي أنا جاي أبو دبيل راعس لتشوفنا معلم كوين دقال مقعيس واكم مقلع عتكاي فسيح وين هاي انت كسجنتين حرونتي أنجونا ده حرونتي أنجونا وكس دباتك لما جيت أم عرنتي وأختي حالك من الأسمرايا نمكي أو هير هلاك عين أرتس نمكي هير هلاك عين دباتك وبضي مكستي مركا وحي سادوي مقعيس محاربنا هرر إني هلاك وصبيت وإحساس واكي مغلويان
hanjabaad oo culculus maalin kastana waxay bilaabeen inay micnaha ay qof kasta ay xoqtaan ay wareeriyaan ay dhibaateeyaan ma kastee marka waxa waaye barbaleenku waa badanyahay shidada waa badantahay mago ma caafimaad qabtiina waa caafimaad qabnaa maxaa kaa hadlaysan maxaan kuu qabanaa maxaan soo dirnaa wala anaad waxsaas ma u baahan laakiin xaalad waxaan isku dhahaa inaan iskaga biiro saani la tahay inaa ayaga ku biiro dhegayso wax aad ku biiraysa ma jirto kaama awood roona laakiin waa kaa qayaano badan yihiine iska jiraan ku idhi barbar dagaalankay diidayaan had markay weerar qaali tagaan ay qoladan ridada ay weeraraan weerarka kala hormar iskana ogo markaad weerar qaadaysan xarunta aad ka tagtay ciidan uga tago hubka kuu yaallo si aad dhowta aad gadaal usoo gasho waa kasi arrintaas aada un kasi kolley ciidamada iyo xaggiin iyo saadka iyo okay min yihiin معلمك واحد كل هالله أمير دبل رعمية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاي ولالك أخي العزيز معنا أنت سيتا وأختها وحكستنا معنا أديك واكور هايسان واكور هيا أنا قلنا وحنكو أبا إن عتهين كالنتي سكصوبحة أو عن لسود لا فكري صح marka waxaad u baahan tahay annaga soo direen hub iyo saanad iyo ciidan intaba adiguna waxa laga rabaa aagaaga inaad ku jirto magaca la sheegayo leeyahay waa la isku raacayaana ma jirto haddii wax la isku raacayo waxaan isugu imaanaynaa mid dhexdhexaad ah waxaan ku sheegaa khudkhutaas badanaa ligu haaya marka nimankii oo magaciisi oo halaag ahay dawlad isku sheegiye baka daranyihiin ba ma fahmin oo kuwa cadow ahay oo iska baaxinin uykaabana wadara maalin kasta qashqashaad waxay keeneen baabuur oo runeed oo umulka aan leenahay inay wiilashii iyo baabuurkii dabka la geliyo oo hal laga reebin kabacdina maalin kasta isku tuutuur waa la isku dhiidhiiwayaa annaga ma yeeli saanay naqati si kama wax ku dhacayn marka ana bufuluu filinkaa ma fahmin walaalihiin aadan kuu gartay kowdha waxaad samaynaysaa adigu ishaada kor ha jirto waa inaad feejignaato ciidanka la hadal aagiina ku jira waxaa kaloo samaynaysaa oon kugula dardaarmaya intaysan ayagu dagaalka qaadin waa inaad kala hormartaan idinka unukaa dagaal bilaabay idinka tiina zaa'idaa ka dhigaysaan markay ayagu hal weerar qaadi jireen adigu waa afara ka dhigaysaa waa 3 jibaaraysaa kooda oo qolooyinka ay la dagaalami jireen oo markasta halaagaa la dagaalanta la dhahay waxaan rabaa inaan horara dagaal qaada xariga daran in la yiraahdo magacaaga oo bataal rabaa magaca aan isku raacaynana waa mid dhexdhexaad ma ahane wax kale ma jiraan haddana qeyraan kugu ogahay waxaad samaynaysaa kaalintaada ka soo bax inaan nin raga tahay waa ogahay sidaa iyo nabadgelyo ma intii ka bixin waxaan rabaa magaciisa adiga ciidamadii oo tababara oo haya dheesay oo tashkiil naas inaan noo soo dirtaan rabnaa marka min fadlikum minig الهلام يا أرنتاس وأكو قارا يعني مرة ولكن سأنا نفتكر كان عيدك وأنقول يعني أنت عيدك بدنا أكثر أنا مصدرني أنت يا جوكتنا طبعا كوسا قرشين أنا أدو سي دلال ويا هل مرة دقال يجي بعد الرال هاي ما بصدق دقال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته wax badan ma ku dhiiribay foojigna oo isku badnaa dhinacaaga bariyahan waxaan maqlaay warar badan soo baxay marka dhinacaaga aad iyo aad u taxadir wadaadka iyo macallinkeenana ka taxadir macallin dagaal ka taxadir asana dabeel raac waad nagu ogtahay hawshaas adiga waxaad joogtaa meeshii ugu weyneed meeshaasi waa meel khatar badan is ilaali haddaad wax fahmi weydana dib u soo guro anaga إن شاء الله والسلام عليكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر